qoraalkan ka kooban 6 qodob oo ay soo saareen qaar ka mid ah ismada Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso ayaa lagu socodsiiyay xafiiska madaxweynaha Puntland iyadoo oo la sheegay in uu yahay guddoon ismo oo ku saabsan halka khilaafkii dagaalku ka dhashay ee u dhaxeeyay ciidamada BSF iyo xukuumadda Puntland. qodobadan soo baxay oo ay ku saxiixan yihiin 5 isin oo uu ka mid yahay Boqor Burhaan Boqor Muuse ayaa la sheegay in ay ka dhasheen kadib kulamo ismadu la yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Boosaaso intii ka dhameysay dagaalkii khasaaruhu ka dhashay ee Boosaaso ku dhaxmaray ciidamada BSF iyo ciidamada kale ee Puntland bishii December 22 ilaa 23 waxa ka mid ah qodobada warmurtiyeedkan ka soo baxay qaar ka mid ah ismada Puntland in hay'adda BSF ay sideedii hore ahaato agaasimaheeduna ahaado sareeyo guuto Maxamuud Cismaan Cabdullaahi kana shaqeyso dib u hagaajinta tayeynta iyo dib u dhiska ciidankii kale irdhoobay iyo waliba difaaca Puntland sida lagu sheegay qoraalkan. sidoo kale waxa warmurtiyeedkan ismadu soo saareen lagu sheegay in la go'aamiyay in dib u heshiisiin loo sameeyo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni saraakiisha BSF iyo mas'uuliyiintii hogaaminayay ciidamada dhinaca dawladda Puntland ee diriirtu ku dhaxmatay magaalada Boosaaso. warmurtiyeedkan ismadu soo saareen sidoo kale waxa ka mid ahaa arrimo ka baxsan xaalka dagaalku ka dhashay laakiin ku saabsan magaalada Boosaaso ee xaaladdu ay ka dhacday iyadoo qodobka afraad ee warmurtiyeedkan ismadu ay ku yiraahdeen waxaan u soo jeedinaynaa dawladda Puntland in laga laabto heshiiska dekedda magaalada Boosaaso ee DP World iyo PNO Port maadaama aysan wax la taaban karo ka qaban muddo ku dhow 5 sano sida lagu sheegay qoraalkan ismada. isla warmurtiyeedkaasi ayaa ismadu sheegeen in ay go'aamiyeen in 17% dakhliga dekedda magaalada Boosaaso loo qoondeeyo horumarka magaalada dhaqaalahaasna waxa ay sheegeen in ay gacanta ku hayn doonaan si wada jira ismada dhaqanka iyo guddi horumarineed oo magaalada loo sameeyo. waxa bogga labaad ee warmurtiyeedka ka kooban 6 qodob ku qoraa 6 isin laakiin waxa saxiixay warqadda sida ka muuqata 5 isin oo kala ah Boqor Burhaan Boqor Muuse, Beldaaje Maxamed Beldaaje Ismaaciil, Beldaaje Cali Beldaaje Faarax, Beldaaje Ismaaciil Beldaaje Yaasiin iyo Beldaaje Cali Beldaaje Salaad. sidoo kale waxa warqadan ku qoran Ugaas Xasan Ugaas Yaasiin laakiin saxiixiisu kama muuqdo. marka laga yimaado ismadan xalay qodobada soo saaray waxa kale oo magaalada Boosaaso ku sugan ismo u yimi xaaladan inay xal u helaan oo uu ka mid yahay Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan iyo Islaam Bashiir Islaam Cabdulle oo aan iyagu wali war ka soo saarin xaaladan. isla magaaladan waxa ku sugan oo xal u raadinaya xiisadan u dhaxaysa xukuumadda Puntland iyo BSF madaxweynayaashii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farole iyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo uu weheliyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Yuusuf Jibriil. qodobadan ay soo saareen xalay qaar ka mid ah ismada Puntland ee ku sugan magaalada Boosaaso wali kama aysan hadlin dhinacyada ay khusayaan laakiin ila xogagaal ah ayaa sheegaya in ay maanta soo baxayaan warar kale oo la xiriira xaalka magaalada Boosaaso. Maxamed Xasan Dhalo, magaalada Boosaaso.